wafdi hogaaminaya wasiirka dibadejinta iyo samafalka Somaliland oo kormeer howlad ku yimid magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta booqday qaar ka mid ah xaafadaha danyarta iyo goobaha loogu talagalay in danyarta iyo dadka barakaca ah looga dhiso dhismayaal cusub oo guri ah. wasiirka dibadejinta iyo samafalka Somaliland Axmed Cabdi Kaahin oo ka hadlay ujeedada safarkiisa ayaa waxa uu yiri maanta waxaan kormeerkaygani uu ka mid ahaa goobtan aynu joogno la dhisi doono 200 guri laga dhisi doono xaqiijinteedii in dhulkii bal jiro si aan hay'adihii markaa ugu soo dhaqaajino oo aan inaanu hadda waa idin diyaar dhaqaaqo dhismihii bilaaba ayaa horta koow ka ah iyo inaan gobolka eegno xaaladiisa guud iyo magaranaysa wixiisa gaarkaba labadaba eegno waa ogtihiin wasaaraddu waxay fulisay ilaa 800 guri imikana waxay fulinaysaa waxa weeye Burco waxay ka fulinaysaa 200 guri Hargeysa waxay ka fulinaysaa Berbera 250 Boorama 150 ayay ka fulinaysaa oo dhawaan la bilaabi doono Hargeysa waa ogtihiin 700 oo guri oo sandaaqadood baa dhamaaday 350 way dhamaadeen oo dhawaan waa la furayaa waxaas waxay ku saleysan yihiin siyaasadda madaxweynaha barasaabiinka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Waxle oo wasiirka uga warbixinaya xaaladda guud ee gobolka ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii tani saddexda xaafadood ee Maxamed Koosar iyo Aadan Saleebaan waa xaafadda ugu yar labada kilomitir ka weyn annaba 400 ay hagayso wasaaradda dibadejinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kaloo wasiir kormeerka kugu jirta degmooyinka aynu tagi doono ee ay ka mid yihiin Doqoshay Balidiig Warcibraan Qoryaale Duruqsi Waraabeeye iyo tuulooyinka hoos yimaada dhammaantood barakacayaal baa ku sugan indhahaaga ku arki doontaa sidoo kale waxa iyaguna kormeerkan ka hadlay mas'uuliyiin kale oo la socday wafdiga wasiirka iyo wafdigiisa ayaa la filayaa inuu kormeer ku maro deegaanada degmooyinka gobolka Togdheer Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.